horgalayaal waxaa la leeyahay laaluush bay qaateen dee puntland laaluush ka bixin mayso dhulbahanta siin mayso deegaanna laaluush ku bixin mayso laakiin dadka dhulbahanta waa inay ka shaqeeyaan inay kuwaa ka qabtaan dadkooda ka qabtaan itixaad baa waddankaas soo weerara puntland dadka ugu badnaayo reerka majaarteen la yidhaahday taayiraa la mariyey ilmo adeeradoodaa marinayay مسألة ما أحد مركز الربو إن هبل قضية له كم إحنا ننكفضوش وضوء إن تاير لمرير أو مري كانوا بدو وإن عبشر وممنوع قعشر وممنوع سلوك وممنوع رجع أنت سواك ممنوع رجع تفتنا يكلام وحبي كلام قوستان waxbaa la isla wadaagaa siyaasaddu garab iyo gaashaan ay isu leedahay waa la isgarabsadaa han baa la yeeshaa iyo himilo waxaa la raadsadaa meeshaad siyaasadda iyo himilada ka geli lahayd laakiin haddaan soo taagnaa laaluush aan weli taaganahay laaluush aan dhulka ku bixin horta waa guul darra aan ma odhanayo dadka laakiin kooxaha yar oo kooban ee shacabka meeshaas degan wuxuu magan u noqday laba shay wuxuu magan u noqday laaluush dad la soo siiyo oo qamac ku wada oo madaxa uga istaagay iyo wuxuu magan u noqday been abuur kooxa ay ku fidanayaan oo weliba been abuurkaasi uu yahay mid ku wajahan puntland oo puntland lagu caayayo lagu cambaaraynayo lagu liidayo lagu waxyeelaynayo lagu halkii ay fitnada iyo masiibada laga abaari lahaa ka imaanaysa hargeysa inaan laba abaarayn oo jeegada la xijinayo oo qofkiiba hargeysa uu aaminsan hargeysa ka dagayo hargeysa masaalix ka samaysanayo hargeysa makhaayadii ka furanayo hargeysa ganacsigii ka furanayo taasaa sababaysa ninka laakiin cayn jooga ninkaas laascaano jooga waa la walaaba laakiin ku karti maaha ku aragtina maaha ku fahamna maaha joog iyo jiifba waa lagu weeraray xoog iyo itaalba waa lagu weeraray waa jabiyey ciddii soo weerartayna waa jabiyey marka horta yaynaan daa'iman aan joojinna waxaa la yidhahda saluuga aan joojinna waxaa la yidhaahda cabatowga aan joojinna cabashada joogtada ah waxbaa nala ka caday iyo waxbaa nala ka xaday iyo waxbaa nala ka cunay iyo cid wax kaa cuntay iyo cid aad wax u sheegtay halkaa iga sii xasanow ما فهمتي وانا ريوين يكاد وانا ريوين وانا وحيابا كبحسن ضد ماذا يا اخي ان بيولا طلابه عناي مالو لح كسوع العلسه بيولا وما قال كعيو كعبت ما تطبع بحرام قال كعي اللي سميه هذا الذكران بيسونا ما عبرنا دقالك ugu xumaa kii muqdishamidkii ku xigay gaalka ayuu ka dhacay ma cabarno cidna uma aan cabar hoos cid kale ma aan xiriir cidna ma aan oranin aan idin la heshiin ama laaluush kama aan qaadan adar dad baan wax la dhigtay dad baan qayb ka ahay ragayga ka mid ahay halkoodan ku qadaya halkoodan ku baqtiyaya kaba iyo talkaaba waxa la dhexda looga jiraan dadkaygan dhexda uga jiraan halkaana aadi maayo lacagna qaadan maayo laaluushna qaadan maayo waxay xamarna anaa ka soo dhacsaday intaan gaalkacyo ka bilaabo dagaalka xamar ku galnay yaan ka soo dhacsanay adeer raggu waxa way markuu isku tashado waxa la yidhi calool adeeg waa ilaahay u helki adeer gaalkacyagii gaalaascaanood laba furanay ku yaalaan isdifaac waa isdifaacnaayo sheeka intaasay ku dhantaa haddaad u baahato gargaar haddaad uba diyaaran kuula ah haddaan gargaar kaaga baahdana diyaar iila aho intaasu bay joogtaa meesha la yidhaahdo buuhoodna waa gurmad walaalkii waa maalinta xabadda rido waa la ridi garabkiisaan taagana haddii uu 10 ninkeena 100 baan ku biirin ani waa adeer waa hilbadiriraa ani mana catoobo mana cawdo mana lihi saluug waxay u bannaanka yaallaan rag waa iska dhicin waa cayrin nin aan Soomaaliya ka cayrin male nin nabadoon la yiraahdo halka ka hadlayo SSDF Soomaaliya burburisay markaas asagu waa qaawanaa waxba ma ogeey saaku baraarugi marka waxaan kaaga wadaa dadkaas oo kaleeta waddanka soo weeraraya oo wixii xamar ka dhacay marka annagu cidna waxa cidna annagoon aadaynin adeer deegaanka qofku leeyahay waa inuu difaacdaa
laaluush kama qaadan karo kii laaluush qaatana waa in laga reebaa adeer macana waa mahadsantiin adeer laakiin luqadan waa ka baxaya adeer luqadan catawga iyo cabashada iyo saluuga iyo shuqulnaadoodka meelahan ha la imaanina raganimaan wax lagu raadsadaa rag iska celiya laakiin haddaad maalin walba la soo istaagto maxaa biyo la ii siin waaye adeer biyo doono شنو هذا الرجل يقول حتى ما الدقمة أنت قرب عريسي ستاب عاد سلاب هاي دكتور عمباري هذا الرجل هذا رواية نص قابل أسرع إن شاء الله هو صوت قابل مقالة طلع شركة الوقت طيب بدنا وين ورد لبي توقف كل شيء دقالة كذا عيادين كاس مدحين كحيان كبدلا أنا مركز ويرك وقاضي مدحين كحيان كبدلا حتى أسكر الله مدري مدحين كحيان كبدلا ما ويرك وقاضي إلا حد بطت في دقالة أس متقرأ أي أوتنت تحت الله geedkii barda taleex lagu shiriyay shirka qaatimo lagu qabtay Puntland baa jirtay maalintaas la jaray maalinta wixii ka dambeeyay waa ogeeyay labadii madaxweyne ku xigeen ee maamulka qaatimo loo sameeyay labadiiba Puntland baa xil looga dhibay la ma taqaanay runtii oo dalwiisha xil gariyay markii la burburiyay shirkii dadka la weeraray dhibaatada ay u geysatay Soomaaliland mid ka badan Puntland u geysatay hadaba waxa weeyaan arrintu waxay ku soo weeraraysaa waxay ku soo aruraysaa haddii Puntland ay sheegis ay tahay oo ay leedahay war dadka tashada idinku isdifaaca idinku daliina ka tashada idinku dhulkina difaacda maxay ugu dhigan tahay dadka deegaanka maxay ugu diidaysan inay maamul noqdaan maxay qaatimo burburisay maxay hor istaagtay maxay walaalnimo iyo isir iyo mataqaanaa waxa ehelka ka dhacay ee dadka ka dhaxay dhulka lagu difaaci jiray dagaalada sokeeye ay ugu heli waayeen ugu garab istaag waayeen kaliya haddii kale oo ay dhab ka tahay Puntland in dadka deegaanka Puntland ka yihiin waajib dawliya ay Puntland ku tahay dastuurka ku qoran inay deegaanka difaacdo inay ku halayso ninba dabaqoodhi xaga ka soo socdo horgala inay ku halayso reerbaa wax tabanaya inay ku halayso mid dhamaysan ahayn siyaasad iyo xoog iyo Soomaali intaba kay ku wada kartana ku wada yahay marka adeer horta Puntland dhaliish ay leedahay runtii adiguna ka lalin cadaalad baa loo baahan yahay waxa weeye gaalka delegatsana si Puntland dhaliil weyn bay leedahay madaxweyne kasta Puntland u sharaxan muxuu ugu ololeeyaa sababta ugu ololeeyo la saacada soo celinaya waxay maxaana haddana ay ku dhacday in soo celiyo iska daayay in deegaan hor la sii qabsado adeer marka cadaalad insha Allah ku soo dhawow dadka shacabka aad dhaliil galay waranta kala qaybsanaan baa jirta لكن بدنا ندلش بدي ذكرنا رؤية والله كوس عادو إن شاء الله وحكومة حتى إذا نمعوا الهلال كده من المختار تاكوس عاد إن شاء الله أمر ما يكون أمر ويكبع الإجراء الرالي هذا أنا مدير قليل لكن بوقا رنتي نقل عليه السلام عليكم وروا عادي ويان والهلال وكادي والنسين يا أنا كم ديران وادين كسو علينا يا با كم ديران مهلال با هلال ولا صد السكين واحد سلاد مغرب يتاجر بالوايا كسو قالنا هذا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحت لما توين السلام يا شيطان كسكنارا أنا هذا يسبيس كده جرب صوت البضيو ويسور توبي ويديو هذا سوق أفسد هرت ما شاء الله هرت أنت مرادك على هرت واقع هرت إنه هرت وحيني شيء يا هرت سبيس كمركو رقاب كلا لغو فري وحكي على لكن هذا مركي دم تدقيق نقط ورنما هرت لا كعب صدا dalki waa u jeedaan uu holcaya inunkuna waxa ka hadlaysaa Puntland iyo Somaliland iyo Kaas iyo Keerba kalsan anu waxaan dhihi lahaa inta kor u kacdaan hoos ha fiirinine iska daaya odagana waxa u maanay kuleelka waxa ka keenay micnaha dadkii badana u jawaabay dhib male Soomaali taariikhdu way qoran tahay sida doontaba ha ahaato laakiin dalku wuxuu u baahan yahay in la jaheeyo iyo wanaag iyo khayr lagu jaheeyo ina ka daaya hadda micnaha dood iyana ka dhigin Puntland baa saasa muxuu qola asaasa qola la haysta waxana macna ma sameynaysa nimayo waxa weeye inaga hadda space-ka isku jirna space-kana isku baranay isma naqaano afarta qaaradood ee adduunyada ba kala joognaa waxa isu keen fududeeyay wide kaas ay isku fududeen wide area network kaas isu kala keenay niyo waxay ni sheegayaa oo adeer Cabdinaasir uu yahay bahasha hoos u dajiya iska daaya qabyaladan sidii aanu fakarno intellectual wadada aqli leh oo wax fahansan qabyalad waa u jeedaa Soomaaliya 30 sano ku jira qabiil waxna ma taraayo yana inuu dib isugu noqon isu xaxagane aan kor uga baxnay ilaahayna ka cabsano qabaa'ilkana waxa uu quraanka lagu sheegay ayadu ugu dambeysana quraanka wax lagu soo qofka uu karaamada badan ba ugu wanaagsan dabcan qof walba meesh ku soo jeedo inuu wanaajisto wax fiican way dhibaato marceema laakiin yeenaan isku calaadin oo isku nicin qadam meesh ku jirna sheedaankan iskana dhaafa qabyaladan hadda in rigaastay waxna wadankii kama joogno inagu ma joogno halkaas kaga jirnaa iska daaya qabyaalada inta saynlay inta soo qabsaday wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waad ma santahay hilal walaal aad iyo aad baad ma santahay asxaabta hadashada qarajinaya inay hoos u degaan si dadka kale aan chance u siin insha Allah aad baad ma santahay hilal oo cunaya ku soo aadeer insha Allah horena waa hadashay soo gaadi
maya anigu insha Allah laba minute baan hadlayaa waan deganahay heat ima gaadhin kuleel ima gaadhin cunaayo spaceyadan dee raggii bilaabay oo aasaasay buu ku yahay meeshana maskax in la tuujiyo ayaa laiskugu imaada ma garatay laakiin emotional uma fadhino waxaan halkan ka salaamayaa suldaan baan arkayey suldaanka guud ee somaliland waa naga maqan yahay laakiin aad baan u salaamay hilaal fi lcaalam maasha allah khudbadiisana waan soo dhaweynayaa haddaan dooda ku soo noqdo horta cunaaye tabasho iyo cabasho iyo ma garatay halkan uma soo gelin waxaad moodaa kelmadihii horaan idhina kuleel badan in xaajiga ma garatay adeerkay aan aad u jecelahay oo aanan dee ku talax tegayn oday naasir waayeelkeennii madaxdeennii aanan ku talax tegayn laakiin hadalladeedii hore waxaad moodaa ma garatay in xoogaa ma garatay kuleel kicisay horta waxaan rabaa inaan kuu sheego xasanow anigu waxaan ahay nin reer SSC ah xuquuqda iyo maxaa la dhahaa u doonista xuquuqda SSC inta badan ama aalaale ka hadla waraaqo fara badan qora maxaa la dhahaa sida dalka waxa uga socdaanna og wixii caalamka ka yimaado magaca Soomaaliya lagu cunana taaka taaka ula socda marka anigu waligay ma joojin doono 100 milyan ee Puntland marka la siiyo ma garatay ee dhahdo waxa lagu siinayaa gobolada SSC anaa ma garatay maamulka ahee ha lagu soo wareejiyay dhaqaalahooda beesha caalamka waxa ugu sheekayso marna kama daalayo inaan beesha caalamka maalin walba waraaq u qoro oo aan idhaahdo mashruucii aad bixiseen aad ugu deeqdeen maxaa la dhahaa gobolada Puntland maxaa la dhahaa Puntlandna sheegtay maxaa la dhahaa waxaa laga hirgelinayaa goboladoo dhan ay ku jiraan Sool iyo Sanaag iyo Caynba beesha caalamkow mashruucani waxaa lagu koobay Garowe gaalkacyo uu naasir ka soo jeedo biyoolo waa laga hirgelay naasir oo gaalkacyo haddaa rabta anaa kuu soo diraya iyo qardho hadda waa 100 milyan oo mashaariic biyogelin ah iyo maxaa la dhahaa World Bank uu bixiyay kama aamusayo tabasho iyo cabashana maaha waa xuquuq aan u doodayo gobolada SSC cid aan uga fariisanayna ma jirto waana ku soo celinayaa naasirna waa ka xanaaqi karaa 100 mar hadduu rabo hiidna waa ku ma garatay marka waxaan leeyahay taasi waa taa wixii magaca Soomaaliya lagu cunayo ama waxa Soomaaliya loogu deeqo federalismka waxaan u qaadanay wax kala ma xasane waxa weeyaan in hoos loo dhaadhiciyo laakiin Garowe in lagu koobo maaha ama Hargeysa waa in hoos loo soo dhaadhiciyo haddii kala saami badan ayaa meeshaas ku lumaya ma garatay musuqmaasuqna waa badanaya taasi waa taa ina cambaashe waa haliyay 100 technica wata oo reer SSC ah meel walba oo SSC-na xor buu yahay inuu tago isagoo weliba shaati Somaliland ama SLM aan huwanane shaati dhulbahantanimo oo meel walba ku tago ma garatay deegaankiisana ilaashanaya waxa ka socdana waan ognahay boocame in la rabo in xadka lagu soo fidiyo Garowe oo lagu soo durkiyo meesha la dhaho boocame taana kama yeelano reer boocama soo dhaweeyay kaarbad cas u dhigay yiri warda ciidankii Puntland ee Saciid Cabdilaahi Dani ayaa damacsan meeshan inay soo weeraraan mahado maxaa kala gudboon mahadna waa ka 60 technical soo dhigay Puntland sidii caadada ahayd waa kala yaacday anigu waxaan leeyahay maanta nin walba bogcadiisa ha ilaashado Puntland iyo Somaliland lagu sheegayna waa federaal qabyaaladeysan oo aad u qabyaaladeysan runtii oo la dhaho clan federalism waa taan idin sheegay Soomaaliya waxa ka jira waa maamul goboleed korka laga dhahayo laakiin bahal aad u qabyaaladeysan anigu waa deganahay ma xanaaqo space kana de waa spaceyadeedii adeer naasirna waa odaygeygii oo wuxuu dhahay calaamtu dhahay kama damqanay waxaan leeyahay adeer naasir wixii khaladaan dhahay iga raali noqo cafiya saamax saaxiib baan nahay intaasaan kugu soo celiyay ma garatay raganimo waad maasantahay cunayow aad iyo aad baad maasantahay runtii hal mid baan rabaa inaan kaa saxo
in waxa dhibka taaganba waxa weeyaan hebelna waa dalkiisa iyo deegaankiisa uu joogaa hebelna dalkiisa iyo deegaanka uu joogaa dhinacan baasha hadduu dalkiisa iyo deegaankiisa joogo meel kastana uu tegi karo ka kasoo horjeeda Puntland ciidanka ka ana dalkiisa iyo deegaankiisa uu joogo isna meel kasta uu tegi karo waxa dhibka isku hayana ay yihiin dadkii deegaanka oo laba maamul la kala socda waxa marka adigu hadda hadalka sida muuqata in aad mataqaanaa taageeraysaa in runtii dhibkaas lagu sii jiro anna waxaan doonaynaa in dhibka laga baxo in meel la isugu majiiduudo ama Puntland waxba lala dhistay ay ka dhabayso Puntland waxay lala dhistay dastuurka wixii ku qoran ay ka dhabayso deegaanadaasna gacanteeda ku soo celiso ama dadka deegaankaasi Puntland totally ay ka soo baxaan ay ka soo baxaan Puntland xuquuqda iyo xaqa iyo mataqaanaa mashaariicda deegaankaasi ay qaadanayso ay tiraahdo anaga naga midin dastuurkeeda ka saarto dadkaasna ama marka Somaliland ha loo soo mariyo ama deegaanka ha loo soo mariyo laakiin adigu waxa wada tii ahayd split area iyo anaga kala sheeganna hadda hadalka ku soo xiriiqay waa marka laga saaro waa marka laga saaro okay waa maasanta xasan oo waa dheereysay waxaan ku soo gabagabeyn lahaa xasan oo ما يولال كذا واحد يقول هذا الشيء إنا يرسح عن ربع ما قرأت إن يرتدي 20 second يقرأ النقطة بولان ودناها SSC كشقيسة أما دن SSC اللي ده كشقيسة وقرح ذو قلبات كسو بحضي يدو بري كسو بيح الهيد وقرح ذا وقلبات كسو بحضي ما قرأت وما سنت بدو ما سنت ولا صدق كلا أنا وحنا كوجا هاي سومالي لأن ودناها الدجاج كشقيسة يرى وقرح ذا بري كسو بحضي تذكر كم حاضر نوا أنت سمعت كلامه. وكور عسنا وما سنت. تاسع مركب ماشي كلامه ويان أضد ما سنتاي وحنا نيو أندونيا بدكله إن أنا أرمها يرى هوسي كامل كه سومالي دو إستر يقويس بالسكو هستا دول بالسكو هستا ديجان بالسكو هستا ما هديجان كسكورة ميل كستك تاجنت ميل كستا ماري قلبات نوال وقوي يان أرمها كامل كهوسي لو سياسيين أرمها سياسة ده أنا لو قصد أضد رنتي أرمها لو قدينا يان سيدو كله وحياة قدر فيها iyo hadallada runtii mataqaanaa reeraha magaca dhabiya iyo taariikhaha hore dib u noqonaya iyagana inaga ilaaliyo dad baan nahay aad baan dhamaantii islaamiya waxaan u maleynayaa muxtaar baa ugu soo horeeya asxaabta hadda mikrofoonka haysta muxtaar soo dhow wareedha xasan waa idin salaamaya waan shaqo tegi lahaabe saacad baan sugayay wariya ilaahay yaqaana hadda waagu noo bari hadda waxaan dhageysanayay ma dadkaan aqaaniba mise waa dad kale oo waliba waxaan ka codsanayaa dadka hadlay qaarkood hadhow hadda rabto ku soo noqo inaan mar noo yar digtaansiin dadka chance loo siiyo dad badan ba gacanta hoos fadhiya lamana soo qaban karo ku socon qaro ma anigu ku dheeraan maayo horta markii ugu horeysa waxaan salaamayaa ismahan baan salaamayaa gabadha ismahan xasan sidoo kale aad baan ku salaamayaa dhammaantii waa salaamantihiin dadka meesha ku jira dhammaantii waa idin garanayaa anigu dooda meesha ka socota mar dambaan soo gaaray runtii in badan baan dhegeysanaya xagga hoosaan fadhiyay dad badan baa DM-ka igu soo qoray inuu mukhtaar oo dhegeysanaya saacad doodan kulul waxta mararka qaarkood lagu soo gelayo waa maxay waxaan eegayay meesha bahashu u socoto xalay markaan seexdayna dood noocan oo kale ah baa socotay marka tii xalay baan ka hadlay tanna waan ka hadlaya macna samayn mayso laakiin waxaa nasiib darro ah wax horta odagaa naasir leeyahdo naasir isbaysida ninka kaliya saaxiibkan ka nahay weeye oday naasir wax kale kumaana saaxiibin dadkoo dhan way necab yihiin runta bahasha runta la yahdo buu ku dhintaa wax kale odaygu isagu inkastoo dee SSDF u ahaa oo mararka qaarkood kacaanka iyo arrimo kale intuu galo xagga ay ku necab yihiin soomaalida kale laakiin runta ayuu ku dhintaa oo runtii haddii ay murka qaadhaanayso wuu ku taagan yahay qodobkiisa inta hadda afkiisa ka soo baxdaan dhegeysanayana 100% waan ku raacsana sababtu maxay tahay waa runtii waa reer gaalkacyood waa nima jeerteena oo reer muduga laba jeer baa ay did qabsaday mise mar buu qabsaday gaalkacyo buu hooda loo gurmaday hubkii ina baydan ee Soomaaliland ay kaga saaray buu hodle 1991 waa meesha kaliya loo gurmaday buu ahaa ee ciid kaga baxay horta arrinta ma ogtihiin horta xiriir noocaas naga dhaxay hadana reer buu hodlayo reer nimanka reer mudug xiriir noocaas baa naga dhaxaya waxaad ogeydeen inkastoo markii dambe la marsiiyay wixii ka dhacay 2014kii meesha la yiraahdo gaalkacyo oo nimankii galmudug oo federaalka iyo xasan sheekh maxamuud wata oo TPLF iyo balaay way kala wateen laakiin mukhtaar mawduucan u soo noqo walaal deegaanadan hadda disbiteria ma sug ma ninka ya naasir ninka gaalka dil gartiisana si ninkan meesha xinihiisa ku degan yahay waxa uu iska celiyay kuwa laascaanood wuxuu yiri anigu meesha xiniyahayaan ku joogaaye adeer reer wax iska celiyay
marka kelmaddaas miyayna xaq ahayn miyayna xaq ahayn dadka maxaa loo jaa'ifaynaya midda kale kuwiina meeshan ku jira ee dhulbahante waxaan leeyahay anuu cid kale la hadli maayo ummaddana ka xishooda ilaahina ka xishooda idinkuna isku xishooda ina cambaashaad iminka noo ammaanaysaan oo horgal ah caada qaata bilaa damiir ah inan gume dhaleah ina cambaashi waxaad leedihiin puntland baa waxay weerartay taleex oo somaliland baa waxay weerartay buuhoodle war ina cambaashe ninkii wuxuu ahaa maxaabiista dhulbahante uu ka soo qabtay ku soo bandhigay fideoga markii khaatumo aan waxwey ahayn qayb buu ka ahaa waa ninkii lahaa deegaankan mar baa la xoreeyey mar labaad la xoreyn maayo mar baa la xoreeyey mar labaad la xoreyn maayo annaguna sheegay oo khaatimo ah mideeda kale dadkiina meeshan ku jiraa naftiina umaydaan soo horin maal badanadii kama bixine anigu nin waxaanay kusoo dhawacmay buuhoodle iyo qordhigu dhexdooda anoo shaad jira intaanka maraykan anoo shaqo fiican haysta anoo wax bartay anigoo mukhtaarkaad arkaysaanoo 10 sano ka hor jooga intaan ka tegey baan 6 bilood ka dagaalamayay buuhoodle waxa weeye burco dhexdooda ilaa iyo markii dambe aan qordhigu qabsanay wallaahi habeenka qordhigu qabsanay ciidanama isma lahayn waxa weeye dhulbahanta qordhigu qabsan karaya iska daa buuhoodle intaan xoreynay wariya wadaamago laamigaanu saaray somaliland waxaanu ka saxiixnoo ku khasabnay siilaanyo in uu si aanu uga baxno qordhugud iyo deegaamadaanu qabsanay annagu dib u qabsanay aanu qabsanay aanan degelin xitaa wuxuu saxiixay in laamigaa uusan ka soo degayn oo magaalada la yahay og wallaahi waa saxiix ilaa hadda waa la hayaa og meesha la yahay og inaanu askari somaliland oo tuuta wataa xagga gobolka cayn ka soo aadi doonin taa beddelkeedana annaguna aanu nabad qaadano isla markaana dib uga baxno deegaamadan du qabsanay ninka ragga ay markuu dagaalamayo saasaa loo baahan yahay meesha calaaca loo baahna mashaariic baa la kala qaataa waxan baa la kala qaataa war laascaanood haddaad gacanta ku qabataan mashaariicda aad sheegaysaan iyadoo soconaysa bay halkaa idinku imaanaysaa laascaanoodna waxay u baahan tahay wax badan uma baahna 100 wiil oo naftooda horyaal ay u baahanta wallaahi ma jirteenka aad sheegaysaan ee aad ka cabanaysaan weydiin soo gurmanaya or adeer annaga cayn markaanu ka dagaalamayna cayn hubka iyo rasaasta iyo saanada militariga iyo farsamo yaqaanada madaafiicda goobta noo hagayay niman reer mudug ay ahaayeen oo ma jirteena ma beenba dadka dhaawac ayaga maanaan geysan karin laascaanood oo aanu ka soo jeednay garowe maanaan geysan karin oo farowlaa joogay hargeysa kadaalig waa isdilayn xaggan xuduuddu waa naga xidhnooda ila baa joogay meesha keliya aanu geysanaa gaalkacyaha dhaawac ayaga lacagka maanaan daba geyn jirin ambalaas maanaan haysan yagaa qaadi jiray oo noo keenin jiray markay soo dawoobaan waxaan aad ummadda isku dhex wadaan ummadda nasiib darro waxaa ah meesha intaad u timaadaan inaad annaga tahay ina cambaashaa geesiyo haliyaya ina cambaashe geesi maaha weliba mid baan idiin sheegaya spacekan qof kasta oo ku jira oo re'isiya waxaan leeyahay xataa including xasankaa ka hoostiga ah intaad ka dhacdaan ka baxa ummadda kale meeshan ha isku jaa'ifayso idinka meeshan hadal idinma yaallo dadkana faraha ka qaada inagu waynu isnaqaanaa anigu mukhtaar baanahay sidaa odaygaa naasir baa runta laygu necab yahay runtuna waa qaraadhahay maygina waa idiin soo celiyey salaamu calaykum calaykum asalaam raxmatullaahi wabarakaatu doctora waad mahadsan tahay aad baan ku salaamayaa axmed ku soco horta niyow waxaan rabaa dhowr arrimood inaan taabto waxaa ugu horraysaa maamulka puntland gobolladan solosanaag iyo cayn qayb bay ka yihiin dastuurkana waa ku qoran yihiin waxbaana laga dhistay madax baarlamaan leh madaxweyne ku-xigeen leh odayaal madax dhaqameeda leh shacab leh wasiirra leh baa meesha jooga sistemka puntland ee lagu bahoobay qabiilka harti iyo qabaa'ilka kale ay ku bahoobeen deegaankaas haddii wax laga sheego doesn't mean in maaragtay maxamuud saleemaan laga hadlayo jira ee dadku ku dulman yahay baa laga hadlaya okay waxa kaloo laga hadlayaa puntland maxay boosaaso u qabatay maxay wax iska dhaldhalaal yaroo meel yaroo maalin taagan laga hadlay puntland madaxdeedu waxay u tartantaa federaalkay u socotaa waxay noqotaa meeshani meel muxuu ahaa spaceka aan hadda ka hadlayno kaa meel laga duulo oo soomaaliya madax lagaga noqdo ummadda puntland servicekii iyo noloshii ay u baahnayd ma haystaan dadku dhalinyaradu baahi bay qabaan gaajay qabaan waxbarashada wax haddii qof moogtahay si personaala ama businesskiisa ama noloshiisa isagu wax u habaysan karaa wuu jiraa haddii puntland marka la canaanto qof sooli canaanto ama qof sanaagi ha canaanto ama qof kale oo deegaamada kale ama boosaase canaanto
qabiil lagama hadlayo masheerteen baan laga hadlayn maxamuud saleebaan baan laga hadlayn gobol khaasan gaalkacyaan laga hadlayn puntland systemkeedu waa failure wuxuuna failure ku yahay inuu gobolada sool sanaag difaaco amba kaba difaacaba ka tago wuxuu ka failure ku yahay inuu horumarka geysto inuu waxbarashada qayb ka qaato inuu nolosha caadiga failure-ka waxa qayb ka ah dadka madaxda ah ee gobolada sool sanaag ka soo jeeda oo gudoomiye baarlamaan leh oo ninka cabdirashiid waa nin reer sanaaga madaxweyne ku-xigeen baa jooga baarlamaan baa jooga xildhibaanaa jooga odayaal baa jooga shacab weyne kalaa jooga ganacsadaa jooga canaantas guud ee puntland loo sheeganayo lagama hadlayo reerka majirteen layaa waxaan rabaa inaan leeyahay naasir ugu celiyo arrintaas hadduu hadda ku jiro waxaan kaloo rabaa ninka la yidhaahdo ma ka baxay khadar mise inanka hadda ugu dambeeyey hadduu ku jiro waxaan rabaa inaad ii sheegtaan waxaan rabaa inaan dhowr erey raahdo oo gobolada sool sanaag iyo cayn oo buuhoodlana ka mid tahay gobolada ugu muhiimsan iyo deegaanada ugu muhiimsan lama kala qaadi karo lama kala taariikhayn karo simply haddii laascaanood la haysto buuhoodla waa la haystaa waxaan kuu sheegayaa dagaalkaladii buuhoodle lagu difaacayey mar waxaa hogaaminayay cali sabere oo wiiljaacsiyaado reer yogooriya oo dhulbahantoo dhan baa difaaca kaga jiray reer walbaa qayb ka ahaa buuhoodla difaacideeda dhaqaalaha lagu badan ee lagu bixinayay annaga halkan ka diraynay ciddii bixinaysay iyo ciddii ku dagaalamaysay markii dambena axmed karaash baa ka dagaalamayey faysal falaalug baa ka dagaalamayey gaalkacayaa noo hiilisa baad leedahay laakaayo annagaa shilinkayga ku geynsan jirnay dhaawacyada iyo